website-ka war cusub oo ku caan baxay waraysiyada qaaska ah ayaa maanta gacanta waxa ugu jira wasiirka caafimaadka Norway oo ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda oo la yiraahdo Jonas Gahr Støre. Wasiirka caafimaadka Norway ayaa Greenland wuxuu u yimi si uu uga qayb qaato ololaha doorashada baarlamaanka Norway oo dhici doonta 9 September sanadkan lagu jiro 2013. doorashada oo ay hogaaminayeen ama ay ololeynayeen gabdho iyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo laga xusi karo Naima Cabdiraxmaan Caseer oo ah xildhibaanad loo doortay isla xaafadan Greenland. wasiirka markii uu soo gaaray Greenland ayaa waxa ubax ku soo dhaweeyay Naima Cabdiraxmaan. wasiirka oo laba gabdhood garbaha ka taagnaayeen ayaa wuxuu u sheegay Soomaalida Norway horta marka u horeysa in wadanka Norway lagu soo dhaweynayo Soomaalida. wuxuu kaloo sheegay wasiirku in ay dareemaan Soomaalidu inay yihiin dad la soo dhaweeyay. wasiirka oo u jawaabaya war cusub ayaa wuxuu sheegay in marka u horeysa Soomaalida Norway lagu soo dhaweynayo. wuxuu isticmaalay wasiirku ereyga Finasaytilreta oo macnaheedu yahay inay Soomaalidu dareemaan inay yihiin dad la soo dhaweeyay oo kale, inay dareemaan inay ku qanacsan yihiin Norway, inay dareemaan inay qayb ka yihiin bulshada Norway. wuxuu kaloo sheegay wasiirku inay muhiim tahay in Soomaalidu isku aragto sidii Norwegian oo kale. wuxuu kaloo sheegay wasiirku inay shaqo helaan inay muhiim tahay. isku soo duub wasiirka wuxuu kula taliyay Soomaalida inay muhiim tahay in loo arko dad shaqeeya wadankana ku soo kordhinaya wax cusub. su'aashii website-ka war cusub weydiiyay wasiirka iyo jawaabtii uu ka bixiyay wasiirku oo af Norwegian ku baxaysa ayaa sidan u dhacday. Vill du ge noen råd til somaliere i Norge? Somaliere som bor i Norge og som skal leve i Norge, de ønsker jeg velkommen og håper at de finner seg godt i rette. At de er så flinke som du er til å lære norsk, det er veldig viktig for å begynne i Norge, og så å komme seg i utdanning og jobb. Og da vet vi at dette er arbeidsomme mennesker